Arweela waxay ahayd qof dumarka ka adag anshiga raggana leh waxna aan u ogeyn. Kadibna si allawoodka xukunka ugula wareegto ayay maalin maalmaha ka mid ah waxay dumarkoo idilka dhaadhicisay dhowr cisho howlaha guriga iyo carruurtaba inay ragga faraha u qaadaan. Iyagina way ka yeeleen. Dabadeedna xoolihii lagu cidleeyay intuu raggii ku mashquulsanaa, Arweela ciidan ee haweenkii ka samaysay ay hubkoodii ku uruursanaysay. Kolkay aruursatay hubkii oo dhan, kadibna way qabqabatay. Markay taladii u gacan gashay, waxay ku dadaashay tabihii ay weligeed ku haysan lahayd. Go'aan yaab leh ayay markiiba soo saartay. Waxay tiri, rag oo idil waa in la dhufaanaa oo xaniinyaha laga bixiyaa si ay u kacsan. Kii diidana waa in la dilaa. Amarkaas kolkii la fuliyey, waxaa geyga isugu soo haray haween talada haaya iyo rag wada dhufaanan ay adeegsadaan inay wax ka dhiidhiyaan aan laga ilayn. Inkastoo wax walba sidii ay u qorshaysay ay u dhaceen, haddana waa dambe ayaa Arweela waxaa ku soo kordhay walwal ay ka qabto rag aan la dhufaanin oo weli geyga ay ku nool yihiin, kuwaasoo xukunkeedii beri ka maalin halis ku noqon kara. Sidee bay kolkaa taasi ku hubin kartaa ayay isweydiisay. Waxay soo rogtay markii ay dooni joogtayba dadka ay u taliso ee xujooyin adag inay dhexda soo dhigto, kuwaasoo hadday muddo kooban ku fardaamin waayaan dil ku mudan jiray. Waxay islahayd xujooyinka adag nin ragnimadiisa u dhan tahay mooye mid la dhufaani ka jawaabi karin. Halkaa baa waxaa sheekada kaga soo biiray dil iyo dhufaanidba nin keligii Arweelo ka badbaaday. Nin garaad badan oo ku guulaystay oo xaniinyihiisa u nabad qaba inuu geyga wax kaga noolaado. Waxaa la oran jiray Oday Biiqe. Isaga ayaana dadka meel ugu jiray oo si aan loo laaynin xujooyinka inkaarnaa ee Arweela u furfuri jiray. Maalin bay Arweela waxay dadkii ku xujaysay inay u keenaan dhig qaanso roobaad la-eg oo ay aqal ku dhisato. Waxay yeelaan markay garan waayeen, waxay la tashi ugu tageen Oday Biiqe oo markiiba ku yiri, u taga oo weydiista udub leeg oo dhegta lagu celiyo bal horta inay ayada keento. Markaas bay walaacday, nabadgelyadeeda ay u cabsatay. Waxay dareentay geyga raqowro leh inuu weli ku dhaqan yahay. Kolkaas bay maalin kale dadkii waxay ku xujaysay harag labada ducoodba dhogor ku leh inay u keenaan. Taana waxay ka yeelaan markay garan waayeen bay Oday Biiqe ula tageen. Isna wuu u furay markuu kula taliyay inay dheg dameer u geeyaan. Sidaas bay xujadii ku furantay. Maalin kale dadkii isugu yeertay waxayna ku tiri, waa inaad ii keentaan ooray ku hiilan tahay miro oo aan wax raro ah ama xarga ah lahayn. Markay fahmi waayeen siday suurtagal u tahay ku hiilinta miro oor aan la saarin agab noocuu yahay, bay u tageen Oday Biiqe. Wuxuu ku yidhi, oor caddaysani ah geeyaa meel dhoobo leh, kadibna ha ku gilgisto goobtaas dhoobada qoyaanka leh. Markaas kadibna miraha ku dhooba oorku dushiisa. Taasna markay ula tageen, waxaa Arweela ku sii badatay baqdintii ay weligeedba ka qabtay rag ah oo u gabac dhigi kara dhulka joogaan aan weli la wada dhufaanin.